ilaahay ha u naxariisto anas al-shariif ayaa u diray qaar ka mid ah asxaabtiisa dardaarankan kuna yidhi haddii uu gumaystuhu ku guulaysto inuu dilo faafiya wuxuu ku bilaabayaa haddii hadalladan ay idin soo gaaraan ogaada in israa'iil ay ku guulaysatay inay disho oo ay aamusiiso codkayga wuxuu yidhi assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh ilaahay wuu og yahay inaan ku bixiyey dadaal iyo xoog intaan awoodo oo dhan inaan cod iyo garab u noqdo dadkayga tan iyo markaan indhaha ku kala furay nolol ku dhex jirta jidadka iyo xaafadaha xeryaha qaxootiga ee Jabaaliya waxaan rajeynayay ilaahay cimrigayga inuu dheereeyo si aan ugu noqdo anigii ehelkayga magaalada aan asal ahaan ka soo jeedno ee Casqalaan Mujdal oo hadda la haysto laakiin qadarta ilaahay ayaa ka horeysa wax walba xigmadiisana waa la hirgeliyay waxaan nolosheeda ku soo maray xanuun iyo murugo badan marar badan ayaan la kulmay khasaare iyo geeri si kastaba weligii kama aanan daalin in aan runta sida ay tahay u gudbiyo iyadoo aanan been iyo qaloocin ku darin si ilaahay uu markhaati u noqdo kuwii aamusay kuwii aqbalay dilkeena kuwii nafteena gooyey oo aysan carruurteena iyo haweenkeena la jarjaray aysan qalbigooda dhaqaajin kana joojin xasuuqa inagu socday in ka badan sanad iyo bar waxaan idinkuga dardaarmayaa Falastiin taajka dahabka ah ee muslimiinta iyo garaaca wadnaha qof kasta oo xur ah waxaan idinkuga dardaarmayaa dadkayga iyo carruurteena yaryar ee dulman kuwaas oo waqti aan u helin inay riyoodaan inay ku noolaadaan nabad iyo ammaan jirkooda daayarka ah waxaa burburay tanyaal bambooyin iyo gantaalo Israa'iil ah waxayna ku firdhismeen derbiyada waxaan idinkuga dardaarmayaa inaydan idan aamusin xayiraaduhu inaysan idinka hor istaagin xuduuduhu noqda buudooyin u horseeda xureynta ilaa ay qoraxda xuriyadda ee ka soo baxdo dalkeena sharafta leh ee la haysto waxaan idinkugu dardaarmayaa ehelkayga khayr waxaan idinkugu dardaarmayaa quruxda indhahayga gabadhayda aan jeclahay Shaam oo aanan helin fursad aan ku arko iyadoo koraysa sidii aan ku hamiyey waxaan idinkugu dardaarmayaa wiilkayga qaaliga ah Saalax oo aan jeclaa inuu noqdo garabkayga iyo saaxiib jidka nolosha ilaa uu xoog yeesho si uu u qaado culayska oo u sii wado fariinta waxaan idinkugu dardaarmayaa hooyadeeda qaaliga ah hooyada Anas al-Shariif oo ducadeeda barakada leh soo gaarsiisay meesha aan joogo ahaydna iftiinka jidkayga waxaan ilaahay ka baryayaa inuu qalbigeeda adkeeyo oo uu ku abaalmariyo ajir weyn sidoo kale waxaan kula dardaarmayaa xaaskayga aan jeclahay Saalax Bayaan oo dagaalkana kala geeyay maalmo iyo bilooyin badan laakiin haddana balanta ku sugnaatay sida geedka saytuunka aanan dhaqaaqin way samirtay adkeysatay waxayna mas'uuliyadda guriga iyo carruurta ku qaaday kalsooni iyo iimaan waxayna ka codsanayaa inaad hareerahooda joogtaan oo aad garab u noqotaan ilaahay ka sukow haddii aan dhinto waxaan ku dhimanayaa iyadoo aan mabda'ayga ka tegin waxaan ilaahay ku marakacayaa in aan ku qanacsanahay qadarkiisa aaminsanahay la kulankiisa isla markaana yaqiinsanahay in waxa ilaahay agtiisa yaala ay ka qayr badan yihiin kana waaris badan yihiin waxa adduunka yaala ilaahu iga yeel mid ka mid ah shuhadadaada ii dhaaf dambiyadeyda kuwa hore iyo kuwa dambaba oo ka dhig dhiigayga iftiin ku iftiimiyay jidka xuriyadda dadkayga iyo ehelkayga iyo cafiya haddii aan ka gaabiyey oo iigu duceeya naxariista Rabbi waxaan ku socday balankii mana aanan bedelin mana aanan khilaafin ha iloobin Gaza hana iga iloobin ducadiina wanaagsan ee naxariista iyo aqbalida leh Anas Jamaal al-Shariif wuxuu qoray 6 Abriil 2025